السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahey aan jeclahay meel kastood adduunka daafihiisa ka joogtaan waa anigoo ah walaashiin Umu Huda. waxaan idin leeyahay cizi iyo caafimaad ku noolaada. maasha allah waan soo noqday alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waqti dheer break dheer kadib ilaahay baa mahad iska leh. walaalaha inta maasha allah ila socotay way ila socotay. maasha allah inta weli commentiga luuqa igu soo weydiinaysay Umu Huda xagee ka baxday. alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan umulay alxamdulilah. walaalahay aada u mahadsantihiin inta maasha allah ila socotay inta iga soo wardoontay. waxaan idin leeyahay dhammaantiin jazaakumullahu khayra. hawada waan kusoo laabtay alxamdulilah. waxaan idin leeyahay meel kastood adduunka aad ku nooshihiin farxad ku noolaada. maanta maasha allah waxaan iri long time gabdhihii way kusoo wareysanayaan waa lagu waayay videogan yaraa insha allah aan soo duubay. waxaan iri walaalaha iskaga warbixi. marka waxaan idin leeyahay insha allah waan soo socdaa hadduu allah raxmaan ogolaado. hadduu ilaahay ogolaado. waa taqaanaa hooyo markay caruur yaryar ay haysato haddana umusho waxay u baahan tahay break iyo nasiine u baahan tahay. marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waqti dheer kadib hadda hawada kusoo laabtay. waxaan rajaynayaa insha allah sidii aan isula socon jirnay iyo si ka qurux badan biidmi raxmaan inaan wada soconno aana kala faa'iidi doono hadduu allah awoodo la ogolaado. saaka insha allah wax badan idiima wado. waxaan idila qaybsanayaa quraacdaas yar. quraacdan maasha allah quraac aada iyo aada healthy u ah maasha allah aadna u macaan. kolley insha allah waad ka warkeeni doontiin hadduu ilaahay idmo. aniga iyo caruurtayda saaka xanaano lama aadin gurigan joognaa. marka insha allah intaan wax kale aan sameysanayna subaxnimada hore waxaan sameysanaynaa cornflakeskaas. waxaa lagu iibiyaa aldi leader iyo neto intaba. cornflakes waxa weye loosas baa kala duwan baa ku jiro. aada u macaan yahay malabna wuu ku sameysan yahay. siduu u sameysan yahay marka caadi ahaan xakaa ilmaha afka ay ku shubanay ama adiga weyn inaa cuntida aada macad xakaa waa tasti macaan buu leeyahay. aada u macaan yahay. waxaa ku cuni kartaa caano. waxaad ku darsan kartaa fruitis sida anigaba saaki aan rabay insha allah inaan ku sameysto. marka idinkama hordhacaya hadduu ilaahay idmo. waxaan sameynayaa cornflakeskaas aniga iyo afartayda yaryar insha allah. baaquligaas weynaan ku wada sameysanaynaa hadduu allah raxmaan ogolaado. marka anywhere haddii aad yacni caruur yaryar oo maasha allah aada haysato quraacda dhibaato ku qabaan oo kale quraacda ka hor imaatay caanaha hadaa ugu darto iyo haddii aad fruits ku sameysato adiga weyn haddii aad maasha allah ilmo aada nuujinayso ama aad maxaa la yiraahdaa quraacda dadka ay subaxii hore dhibta aad tahay aada iyo aada ayay ku anfacaysaa insha allah. ka faa'iidaysi wacan hadduu ilaahay idmo. waxaan sameynayaa halkaas baaquliga weynaan ku shubtay. waxaan soo qaadayaa malabkaas oo biyuuga ah. malabkaasaan ku darayaa hadduu ilaahay idmo. malabkaas markaan ku daray insha allah yogurt plainka ama yogadada kaleeta maxaa la yiraahdaa macaanka uu ku jiro. haddaa yogadadaas macaanka ay talaagada aad ku haysato amaba ay ku yaalaan guriga uma baahnid inaa malab aad ku darto. marka maadaama aniga uu yogurt ii oolin inaan degana aysan muhiim ahayn yogurt plainkaasa ii yaalo kaasa insha allah ku sameynayaa. yogurt plainkaasaan ku darayaa. danna waxaa ii jarjaran oon ku haystaa ii diyaarsan insha allah aan ku dari doonaa dusha aan kaga dari doonaa mango iyo maxaa la yiraahdaa beriyada oo dhan oo ayagana isku jirjiro iyo fruits kaleeto kala duwan insha allah oo fruit aad u badan oo maxaa la yiraahdaa la isku keenay ah maasha allah intaasoo dhan baan dusha kaga dari doonaa hadduu ilaahay idmo. kadibna waxaan sameynayaa qof kasta boolkiisa maangadaas insha allah aan ku daray maangada go-aan weeyaan maasha allah. dee tastigii wuxuu isla noqonayaa wixii wax kaleeto isla noqonaya ilmihii waxa weye ma diidaayo adiga weynaade maasha allah wuu kugu soconayaa wax aad diidaysid midna ma ahan. marka haddii ilmahaaga quraacda subaxi hore ay dhibaato ay ku haysta ama adiga weynba aad dhib ku qabto maasha allah ka faa'iidaysi wacan insha allah. ka faa'iidaysi ayaan ku dhihi lahaa. furuudadana aaday muhiim korkeena ugu yihiin. waxyaabo badan oo kala gedisan baa ka helaysaa insha allah. marka kaas kaleetan insha allah waxa weeyaan kiwi iyo maxaa la yiraahdaa cananaas oo yaryar uga go-an asagana saasa insha allah ugu soo daray. marka qof kastana waxaan sameynaya kulli intaan isku laaqo maasha allah xoogahoo yarna aan dhigo wax yar aan dhigo. waxaa xoog u adag cornflakeska xoog u adag. kadibna wuxuu sameynayaa markaad wax yar aad minide aad intaad isku laaqid
aad wax yar aad sugto wuxuu sameynayaa insha Allah inuu jilco wixii dhan wax smoothie oo asaga dhanba macaan oo maasha Allah nafta ay ku raaxaysanaysa inay noqoto marka insha Allah kaas anaga saaka quraac ahaan u sameysanaynaa intii aan wax ka dambe aan gadaal aan ka sameysanayna hadduu Ilaahay idmo anigii ubadkayga yar yar aan ku quraacan doonaa insha Allah marka waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan hadduu Ilaahay idmo waxaan idin leeyahay walaalahay aan jeclaa insha Allah hawada waa ku soo laabtay marka waxaan idin leeyahay channelka waa channelkiina insha Allah daawashadiina aad ayaad ugu mahadsantihiin subscribe-ka insha Allah haddii uu aadan hore noogu saarin subscribe noo saar like-tana la wadaag maasha Allah commentiga waa dhiirigelin share like insha Allah waxaan idin leeyahay intaan fiidiyoyo kale insha Allah biidmi raxmaan aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa meel walba adduunka aad ka joogtaan iyo saacad waliba ay idin tahay farxad iyo caafimaad ku qaata biidmi raxmaan